السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي الكسود وهذا كان برشو مقعيقو وخالد عبد الرشيد waxaan doonayaa maanta inaan idin la wadaago qiso aad u qurux badan waa qiso run ahaantii ugu dhiirigelisay inaan idin la wadaago ama idin soo gudbiyo qisadan waxay dhex martay 4 wiil oo walaalo ah iyo 4 sanduuq oo uu uga dhintay aabahood balse saaxiibka ee daawanayo inta aanan qisadeena u gudagelin haddii aad tahay daawado ku cusub ama markii ugu horeysay aad timaaday kanaalkan fadlan subscribe taabo sidoo kale ha hilmaamin in muuqaalka aad like saarto markale ku soo dhawaada muuqaalka quruxda badan ee amaanta idin sido waxaa jiray nin oday ah ka oo kamid ah odayaasha qabiilkii uu ka soo jeeday ninkani wuxuu dhalay 4 wiil markuu weynaaday odaygii waayeelna uu noqday ogaadayna in ajashiisu ama geeridiisu ay soo dhowdahay mid ka mid ah shaqaalihiisa ayuu ku amray inuu u keeno 4 sanduuq oo faaruq ah ama sanduuqyo aan waxba ku jirin kadib odaygii wuxuu soo qaaday sanduuqyadii deedna wuxuu yimi meel aan cidna ka arkaynin alla mooyee sanduuqyadii gudahoodana wuxuu geliyey waxyaabo kala duwan mid kastana wuxuu ku qoray magacyada wiilashiisa ee 4 ahaa macnaha sanduuq kasta waxa uu ku qorayay wiil gooni ah 4 sanduuqna waxa uu ku kala qoray 4tiisa wiil sanduuq kastana waxa uu geliyay wax u gooni ah intaa kadib 4tiisa wiil ayuu u yeeray wuuna kulmiyay wuxuuna ku yiri wiilasheeda adduunyada laguma waarayo oo cid kasta way ka tagaysaa oo ay geeriyoonaysaa aniguse waxaa soo dhawaatay geerideeda balse 4tan sanduuq aad arkaysaan ayaa mid kasta u diyaariyay qof kastana sanduuq ayaan magaciisa ku qoray si cadaalad ah ayaana u qeybiyay laakiin waxaan idinku xirayaa shardi sanduuqan cid kasta waxay furi kartaa oo kaliya markaan geeriyoodo raalina ha ku noqdo mid kasta waxa ku soo aado balse haddii aad dhexdiina iskhilaaftaan oo aad ku heshiin weysaan mid kasta waxaan u diyaariyay u taga oo u noqda xaakimka loo yaqaano fulaali waana nin caan ku ah xikmad caqli iyo goynta garta allana waxaan idin weydiinayaa hanuun iyo toosnaan maalmo un kadib waxaa geeriyooday odaygii dhalay 4tii wiil markay soo aaseen kadib waxaa isku yimi wiilashiisii midkii weynaa ayaa yidhi inakeena ee aan furnay sanduuqyadii uu aabbay nooga dhintay mid kastana raalli ha ku noqdo waxa ku soo aado markay isku yimaadeen waxay bilaabeen in mid kasta uu furo sanduuqa ku xusan magaciisa midkii weynaa ayaa bilaabay sanduuqii ayuu furay wuxuu ka helay seef koofiyadda ay xirtaan madaxda iyo calan kii labaad ee ku xigay da ahaan ayaa isna sanduuqiisa furay isna wuxuu ka helay dhagaxoon iyo carro kii saddexaad ayaa furay isna sanduuqii ku soo aaday wuxuu ka helay lafo balse midkii afraad sanduuqii ku soo aaday wuxuu ka helay dahab iyo lacag intaa kadib dhammaantood way iskhilaafeen oo waxaa hunguri ka galay wixii ku soo aaday wiilkii yaraa mid kastana wuxuu bilaabay inuu u hanqaltaago lacagta iyo dahabka sanduuqiisa laga helay dabadeed waxay isa soo xasuusiyeen dardaarankii aabbahood ee ahaa haddii ay iskhilaafaan inay u laabtaan xaakimka lagu magacaabo fulaali dhammaantoodna waxay go'aan ku gaareen inay aadaan xaakimkii uu aabbahood u tilmaamay ninkani xaakimka ah waxa uu degan yahay tuulada ay ku nool yihiin tuulo ka fog waana tuulo saacado loo soconayo dabadeed dhammaantood waxay isku diyaariyeen safar waxay bilaabeen safarkoodii dhammaantoodna waxay ka tageen tuuladoodii markii ay socdeen oo ay jareen 4 meelood meeshii ay u socdeen waxay waddada kula kulmeen mas yar oo waddadoodii isku jaray midkoodii ugu yaraa baa wuxuu damcay in maskii uu wax ku dhufto durbadiiba maskii ayaa afkii kala qaaday oo wiilkii waxa uu ku sigtay in maskii uu waxyeelo u geysto intaa kadib way ka soo carareen ilaa ay maskii ka badbaadeen dabadeed safarkoodii ayay sii wateen muddo markay socdeen oo ay jareen 4 meelood 2 meel meeshii ay u socdeen waxay arkeen geel ku nool meel cidlo ah meel qalalan oo aan ku oolin wax coos ah waa dhul gayaan ah saxaro ah aan ku oolin wax coos ah haddana geelka markaad fiiriso waa mid cayilan oo buuran arrinkii aad ayay ula yaabeen waxay isweydiiyeen oo xagguu geelkani ka keenaa cunnada uu cuno dabadeed wax yar ayay socdeen mar kale waxay arkeen geel kale waa geel naf ah ama waa geel qalliiran balse waxa uu ku nool yahay meel cagaaran ay ka buuxaan caws geedo iyo nimco oo dhan ay taallo arrinkiina aad ayay ula yaabeen dabadeed safarkoodii ayay sii wateen tuuladii ay u socdeen markay uga dhiman tahay masaafo yar waxay mar kale jidka ku arkeen wax kale oo ka yaabiyey waxay arkeen shimbar duulayo kaa oo u dhexeeya 2 geed oo keliya macnaha waxa uu ka soo duulayaa geed waxa uu ku degayaa geed kale haddana isla geedkii ayuu ka soo duulayaa oo isla geedkii ayuu ku soo laabanayaa waxa intaa u dheer marka uu ka soo duula geed waxa uu noqonayaa geed qalalan oo aan waxba ku oolin geedka kale oo ku soo degana waxa uu noqonayaa geed cagaaran oo ay taalo nimco oo dhan waa hadda 2 geed waxa uu u dhexeeyo
marka uu kan ka soo duulo waxa uu noqonayaa geed aan waxba ku oolin oo qalalan, kan kale marka uu ku degana waxa uu noqonayaa geed cagaaran. geedka cagaaran marka uu ka duulana waxa uu isku bedelayaa geed qalalan oo aan waxba ku oolin. kii hadaaya uu ka soo duulay oo aan waxba ku oolinna marka uu ku degana geedkaasna wuxuu noqonayaa mid cagaaran. arrinkii mar kale aad ayay ula yaabeen, way ka tageen oo safarkoodii ayay sii wateen ilaa ay ka gaareen tuuladii ay u socdeen. tuuladii markii ay tageen waxay dadkii weydiiyeen halka uu degan yahay ninka xaakimka ah ee loo soo tilmaamay. magaciisa ayay weydiiyeen, dabadeed dadkii waxay u tilmaameen guri. 4 wiil way soo baxeen oo waxay yimaadeen gurigii ayay gargaraaceen. dabadeed waxaa ka furay nin waayeel ah oo arigiisu uu daciif yahay. waxay ku dhaheen, ma joogaa xaakimka? ninkii odayga ahaa ayaa ku yidhi, ninkaasi waa walaalkii iga weyn, waxa uuna degan yahay gurigaas. dabadeed way ka soo tageen oo waxay soo aadeen gurigii loo tilmaamay. intay waddada soo socdeen ayay isweydiiyeen su'aalo. waxay isku dhaheen, talow sidoo inoo xukmin doonaa qof ka weyn qofka aan hadda ka soo tagnay? macnaha waxa ay ka hadlayaan qofka ay ka soo tageen hadda waa nin waayeel ah, misna haddana wuxuu leeyahay qofka aad raadinaysaan waa walaalkii iga weyn, waxa uu degan yahay gurigaas. haddaba sidee ku suurtagelaysaa inuu xukmiyo qof ka weyn qofka ay hadda soo arkeen? way iska soo tageen oo waxay soo aadeen xaggiisa. dabadeed gurigii loo soo tilmaamay ayay gargaraaceen. waxaa ka furtay haweeney. waxay ku dhaheen, ma degan yahay xaakim hebel? islaantii ayaa ku tidhi, haa wuu degan yahay ee soo dhowaada, soona gala, inta fadhiista ilaa uu idinkaga imaanayo. way soo galeen. dabadeedna waxay u keentay qahwe. markii ay laasteen oo ay dhammaysteen qahwadii waxa u soo galay qaadigii ama xaakimkii. wuu salaamay. mise waa nin firfircoon, ay madaxa kaga taalla cirro yar. waa nin xoog leh oo aan daciif ahayn. arrinkii aad ayay ula yaabeen, sababtoo ah ninkani waxa uu soo tilmaamay inuu ka weyn yahay walaalkii isaga, balse waxa ay la kulmeen waxaysan filanayn. markuu soo dhoweeyey oo uu karaameeyey ayaa midkii ugu weynaa wiilasha ku yidhi, sheekhow waxaan kuugu nimi inaan ku weydiino hal su'aal oo keliya. laakiin markii aan kuu soo soconay oo aan waddada ku soo jirnay waxay su'aalihii isku beddeleen 5 su'aal. yacni waxay ka wadaan waxay waddada ku soo arkeen maskii, shimbirtii iyo 2 geel. wiilkii weynaa ayaa hadalkiisa sii watee wuxuu ku yidhi, sheekhii, waxaan waddada ku soo aragnay 4 waxyaabood oo inaga yaabiyey oo aan ku wareernay fasiraaddooda. waxaan doonaynaa in 4taas su'aala ay naga jaahil bixisa marka hore, kadib ayaan u gudbaynaa su'aasha aan u nimi halkan. sheekhii ayaa ku yidhi, soo daaya 4 su'aal ee aad kula kulanteen waddada, ilaahayna ha i waafajiyo su'aalihiina jawaabahooda. wiilashii midkii weynaa ayaa yidhi, sheekhu, su'aasha koowaad waxay leedahay, waxaan waddada ku soo aragnay mas yar. markaan damacnay inaan dilna afka ayuu furtay ilaa uu naga diiday inaan waddadii u soconay marno. waana ka soo cararnay ilaa aan shartiisa ka badbaadno. ninkii qaadiga ahaa ayaa ku yidhi, wiilasheeda taasi waa sharta. markeeda hore way yar tahay, qof kastana wuu awoodaa inuu deris la noqdo. sababtoo ah waxaa laga yaabaa qofkani inuu deris la noqdo ama waxaanan khayr ugu jirin oo shar ugu jirta inuu sameeyo, kadib hadhowdii ay ku weynaato shartii. sheekhii ayaa hadalkiisa sii watee wuxuu yidhi, sharta markay ku soo gelayso way yar tahay ama ay kula soo darisayso way yar tahay, balse markay muddo ku haysato way kugu weynaanaysaa oo dhibaato badan ayaad dareemaysaa. dabadeed sheekhii wuxuu yidhi, soo daaya su'aasha labaad ee aad haysaan. mid ka mid ah wiilashii ayaa yidhi, sheekho, waxaan waddada kula soo kulannay 2 geel. mid waxa uu ku nool yahay meel qallalan oo aan wax coos ah ku oolin, haddana wuu buuran yahay oo wuu cayilan yahay. sidoo kale waxaan soo aragnay geel ku nool meel barwaaqo ah, dhul cagaaran, doog iyo biyaba leh, haddana waa geel qalliiran oo naf ah. taasina maxay tahay? sheekhii ama qaadigii ayaa ku yidhi, geelka koowaad ee aad aragteen ee ku nool dhulka gawaanka ah, misna uu yahay mid buuran oo aan ka muuqanin wax gaajo iyo abaar ah. geelkaasi aad arkaysaan wuxuu la macno yahay qof ku qancay alla wuxuu siiyey, wuxuu haystana mar kasta ku faraxsan, raallina ku ah waxa gacantiisa ku jiro. geelkii kale ee aad aragteen ee ku noolaa dhulkii cagaarnaa, haddana uu yahay geel qalliiran oo naf ah, isna wuxuu la mid yahay qof ku qanci waayey alla wuxuu siiyey. qof ku qanci waayey wuxuu alla ku manaystay oo khayraad, lacag iyo dahab ah, tabaya ama u hanqaltaagayo waxaan gacantiisa ku jirin, weligiisna aan ka faa'iidaysanin wuxuu alla siiyey. dabadeed ninkii qaadiga ahaa ayaa ku yidhi wiilashii, soo daayay wiilasheeda su'aashiina 3aad. mid ka mid ah wiilashii ayaa ku yidhi ninkii qaadiga ahaa, waxaan waddada ku soo aragnay shimbir u dhaxeeyo ama u duulaya 2 geed oo keliya. markuu mid ku soo dego wuxuu noqonayaa cagaar, kan kale uu ka soo duulana wuxuu noqonayaa gawaan ama mid qaleel ah. marka uu yimaado kan qalalana wuxuu noqdaa mid cagaaran oo qoyan. haddaba taasina maxay ka tarjumaysaa oo ay la micno tahay?
qaadigii ayaa ku yidhi, haa wiilasheeda, su'aashaasi waxay tilmaamaysaa nin guursaday 2 xaas. haddii uu mid u yimaado tan kale ayaa xanaaqayso, haddii uu u yimaadana way raali noqonaysaa, balse tan kale way xanaaqaysaa. arrinkiisuna waa sidaa. dabadeed mid ka mid ah wiilashii ayaa yidhi, su'aasha afraad waxay leedahay, markaan imaannay tuulada oo aan adigu ku weydiinay dadka, waxay noo tilmaameen guriga walaalka gurigiisa markaa tagnayna wuxuu inoo soo tilmaamay gurigaaga, balse walaalka gurigiisa markaa tagnay waxaa inaga furay oday waayeel ah, arigiisana uu daciif yahay. qaadiga aawe markaa ku dhahnayna wuxuu inagu dhahay, waa walaalkii iga weyn wuxuuna degan yahay gurigaas, balse markaan adiga ku aragnay waan yaabnay oo waxaan sugaynay mooye wax kale ayaa inoo yimaaday. haddaba arrinku waa sideese wax u jiraan? waa maxay sirta ku jirta arrinkani? maxay tahay sirta ka dambayso caafimaadkaaga iyo firfircoonidaada? dabadeed qaadigii ayaa ku yidhi, waa sax, ninka aad soo aragteen waa walaalkii iga yar, wuxuu qabaa islaan carab xun, caqligeedana uu yar yahay, maalin alla keenana way caysaa oo way la dagaashaa, allana waxaan ka baryayaa inuu dhibka ka dulqaado. balse aniga alla ayaa mahad iska leh, waxaan ku noolahay nolol qurux badan, waxaan qabaa xaas wanaagsan, hadal jilicsan, sidaad idinkuba aragteen. waad imaateen anigoo hurdo, intaysan isoo kicinin ayay idiin diyaarisay qahwe, markaad laasateen kadibna way isoo toosisay, idinka ayaana idiin imaaday. intaa kadib mid ka mid ah wiilashii ayaa ku yidhi, sheekhii, haddaba waxaan ku weydiinaynaa su'aasheenii 5aad ahna su'aashii aan u imaanay halkani. qaadigii ayaa ku yidhi, soo daaya su'aasha aad halkan u timaadeen. mid ka mid ah wiilashii ayaa ku yidhi qaadigii, waxa ina dhalay odayga qabiilkeena, waxayna u tilmaameen qabiilkii ay ka dhasheen. intuusan dhimanin ka hor wuxuu inoo diyaariyey 4 sanduuq oo uu ku xusay magacyadeena, wuxuuna inoo dardaarmay in sanduuqaasi aan furno markuu geeriyoodo kadib. haddii aan isku qabsano waxa meesha ku jirana aan adiga ku imaanno. markii uu dhintay kadib ayaan furnay. midka inoogu weyn sanduuqa magaciisa ku xusan waxaa ku jiray ama uu ka helay koofiyadda madaxda, seef iyo calan. midka xigay sanduuqiisa waxa uu ka helay dhagaxuun iyo carro. kan saddexaad waxa uu sanduuqiisa ka helay lafo, halka midka afraad uu sanduuqiisa ka helay dahab iyo lacag. taa ayaana ku heshiin weynay oo isku qabsanay. dabadeed waxaa soo xasuusanay dardaarankii aabbaheen ka uu ahaa inaan adiga ku imaanno haddii aan iskhilaafno. sidii ayaa dhacday oo waan iskhilaafanay. adiga ayaan hadda kaa sugaynaa garta, waxaad inoo goysana waan qaadanaynaa. dabadeed qaadigii ayaa ku yidhi wiilashii, imaqla wiilasheeda, hortore aabbihiin waa aabbe aad u caqli badan, qof kastana waxa uu siiyey wixii uu xaqa u lahaa. midka uu nasiibkiisa noqday seefta, koofiyadda madaxda iyo calanka waa odayga qabiilkiina. waxaa la idinka doonayaa inaad adeecdaan, awaamirtiisa aad qaadataan, wax kastoo aad isku khilaaftaanna aad xaggiisa u celisaan. midka uu nasiibkiisa noqday carrada iyo dhagaxuunta, waxaa u sugnaaday dhulal iyo guryo. midka saddexaad ee uu noqday nasiibkiisa lafaha, kaasna waxaa u sugnaaday xoolo fara badan, geel, lo, fardo iyo ariba. ama kan afraad ee uu nasiibkiisa noqday dahabka iyo lacagta, waa kiina idinkugu daciifsan. hana ilaabina oo meel cidlaha uga tagina haddii ay ka dhammaadaan xoolaha uu haysto. micnaha haddii uu dhammaado xoolahan ama hantidani uu haysto, ha uga tegina meel cidla ah. waxaana idiin dardaarmayaa inaad iswaafaqdaan oo isku tanaasushaan. allana waxaan idiin weydiinayaa inuu idin dhowro. kadib dhammaantood way soo baxeen iyagoo ku kalsoon mid kasta wuxuu helay. aabbahoodna waxay alla u weydiiyeen dembi dhaaf iyo naxariis. halkaas ayayna ku eg tahay qisadeennii quruxda badneed. run ahaantiina waxay ahayd qiso aad iyo aad u qurux badan, aan ku raaxaysanayay soo gudbinteeda. ka waran adiga ay daawanayo, sidee kula tahay qisada tan? dabcan waxaan filayaa inaad ka heshay. haddii aad ka heshay, fadlan muuqaalka like saar oo like garee si aan u ogaano inaad ka heshay, kadibna aan u soo gudbina qisooyin noocan oo kale ah. sidoo kale haddii aad kanaalka barasho ku cusub tahay, ku soo biir. kanaalka waxaa ku soo gudbinaa 2 barnaamij oo keliya, barnaamijka qisooyinka iyo barnaamij la magac baxay waxyaabaha kaa daahsoon oo aadan weligaa maqal. soo dhowow mar kale oo rukumo kanaalka si aad u hesho muuqaalada quruxda badan ee aan soo dhigina barteena YouTube-ka ee barasho. mahadsanid mar kale. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.